siyaasiyiinta ku midoobay madasha wadatashiga iyo toosinta Somaliland iyo xisbiyada mucaaradka ee u cudiyay wadani ayaa shir jiraayad ay ku qabteen magaalada Hargeysa waxay xukuumadda madaxweyne Silaani u soo jeediyeen inay ilaaliso xorriyadda iyo madaxbannaanida warbaahinta ka howlgasha Somaliland waxaa nasiib darro ah taariikhda Somaliland 23 sanadood madaxweyne laba jariidadood oo dalka ka soo baxa albaabada u xidhay oo baabi'iyay أحمد سيران يقول أترى هل تريد صدح دي مدحوينة يكوري مدينة مبابين والباب ده محري أروح النقطة كي يبي شعب كريس سومالان وهي شخص يقول إنه هو يوسف يو تفكري سرنتي يوسف هذا من موادنا وقارن كسومالان ميسان كلها نعقون يهانوها نن ردت كقارن كيوسف الجميع بكملها مو متيسم علينا أنه رنتي شخص si in habeen madow inta la xukumo muxuu ahaay laga qariyo qarabisiisa saxaafadda iyo shacabka reer Somaliland iyo in la dhageysto runtii ma mutiisan geesta kale isla shirkaasi jiraayid waxa ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka ururka suxufiyiinta Somaliland ee Solja Maxamed Cabdi Curad oo sheegay in dhalisan yihiin qaabkii uu dhahay xukunkii shalay la guriday mas'uuliyiinta wargeyska Haatuf golaha wakiilada ka codsanayna in xildhibaanadu ay xukuumadda ku tabagalaan xeerarka lagu tumanayo lagu dhaqmi waayay aan fulin aan dhaqan gelin dhowr jeerna baarlamaanka waanu geynay doodayada ku saabsan in xeerka la dhaqan geliyo gudoomiyaha maxkamadda gobolka Boorama wuxuu noo sheegay inaanu arag ba xeerka xataa faafin lagu sameyn kiis lagu qaadiyo Boorama inuu tagnay wuxuu noo sheegay inaanu arag ba xeerka xeerka ciqaabta uu raaciyo xukunkan nin wariyo reer Boorama anaga koobiyo geynay gudoomiyaha maxkamadda gobolka Awdal marka waxaan ka codsanaynaa baarlamaanka laftiisa inuu ku dabagalo xukuumadda in xeerarka la faafiyo in xeerarku lagu shaqeeyo iyo sababta ay u shaqeyn waayeen wax garsoorku Khalid Xabsi Kalsan TV Hargeysa